موضوعنا والموضوع la xiriira madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam waa arin taariikhi arinta ayada Axmed Islaam runtii 2012 baa la doortay iyuu imaaday Kismaayo waxa weeyo maamulku meel gaar ah Jubbada hoose la yiraahdo ayuu madax ka noqday marka ayada Axmed in xitaa maamulka lagu la tartamo dadku way odayaal dadku way diideen kaligiiba mataqaanaa ayaa gudoomiyaha ku meel gaar ka noqday sidoo kale 2013 erga 800 ah ayaa hadana mar labaad doortay oo dooratay doorashadii labaad bay ahayd marka ayada in la tartamo waa la diiday asaga ka shaqeynayay dadkuna ku raacayeen dadku waxay ahaayeen khilaaf ka carar iyo fidna ka carar hadana 2015 baarlamaanka Jubbaland oo markaa kadib abuurmay ayaa madaxweyne Axmed Islaam mar kale dib u doortay marka ayadana waxa la diiday Axmed Islaam in la tartamo isaga diiday dadkuna ayagoo fidna ka cararaya faayada arta loo raacay mar afraad marka ma malaynayo 2019 ka ayadoo isbedel weyn Axmed uusan samaynin oo 8 sano ama 7 sano magaalada Kismaayo takadeeda kaliya la joogay ma malaynayo mar kale ummaddu inay marka saamaxayso inuu Axmed soo dhaweeyo inuu kaliya tartamo odayaasha dhaqanka iyo aqoonyahanka iyo bulshada Jubbaland uu ku qanciyo in aan la tartamin ma malaynayo marka Axmed waxaan kula talinayaa walaalkeen maanta asaga Jubbaland asaga sahlan inuu maanta tanasulo oo shalaysan anagu intaas anagu xukun karabna aan uga xishoonaynay fidna uga carareynay burburka Jubbaland uga carareynay maanta Axmed waxa laga rabaa arinta asayada inuu asagu qaato oo tanaasulo kuwa ku xeeran ee la shaqeynaya ama wasiiradu ama la taliyaashu ana waxa laga rabaa haday Jubbaland jecel yihiin Axmed oo kale oo fara badan baa musharaxiina oo dhooban oo maanta inay wax qabtaan diyaar u ah in uu qanayaan u baahan arintayda hadii walaalkeen Axmed arinta uu mataqaana uu diido ka madax adaygo wixii mas'uuliyada ka xumaaday meesha asaga qaadayo waxa la ogtiin dhinaca kaleeto inay leedahay Kismaayo taariikh oo soo martay maamulka fara badan dadkii hadii kalaba 2019 iyo labadii muddo 7 sano ah walaal kamid ah walaalada Jubbaland yaa joogay Morgan buu ahaa 7 sano kadib si xun buu kaga tagay waxaad ogtihiin 7 kale waxa joogay Barhiiraale asagana 7 sano kadib si xun buu kaga tagay 7 sano kalena waxa joogay nimanka odayaasha joogay si xun bay kaga tagay 7 sano kadib Axmed waxaad moodaa asagana hadii uusan isbedel doonka shacbiga Jubbaland boqolkiiba 99.9 waa isbedel doon hadduu Axmed arinta aqbali waayo waxa laga yaabaa taariikhdaas oo kale in asagana saamayso ilaahay baan ka muran galay xabada loo dhacdo ama xumaan dhacdo ama khalkhal dhaca laakiin walaalkeen waxaan ka codsanaynaa maanta in uu taariikhda galo oo dabcan wixii shalay asagu aaskeeda qayb ku lahaa inuu samaanta burburinin oo ku daydo rag badan oo saaxiibadiya Axmed waxaan xusuustaa intii hadda asagu meesha uu joogay Puntland 3 madaxweyne iska bedeshay wuxuu sawir la soo galay oo madaxweynuhu ku soo gaaray Faroole wuxuu ku soo gaaray Cabduwali Gaas haddana wuxuu ku soo gaaray Deni inta isbedel bay ahayd saasi socotay marka aanu taariikhsan ka hadlayay waxaan rajeynayaa madaxweyne Axmed Islaam maanta inuusan qayb ka noqonin burburka oo goobjoog noqonin shalay markii dhismaysay hadduu Jubbaland goobjoog ahaa maanta markay xumaanayso wax ka halaabayaan inuu goobjoog ahaa oo sabab u noqdo arinta waan kala talinayaa madaxweynaha Jubbaland aad